walow aanay dowladda somalilan war rasmiya kasoo saarin sababta keentay xadhigga xildhibaan dakool oo ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan balse markaan eegno dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 19 faaradiisa koowaad ee waxay siinaysaa xildhibaan lasoo doortay oo ku fadhiya cod inuu leeyahay xasaanad inuu huwan yahay qodobkaas wuxuu mamnuucayaa in qof xildhibaana loo xidho aragtidiisa ama hadalkiisa inta uu ka tirsan yahay golaha wakiilada haddii loo baahdo in xildhibaanka la xiro ama uu geysto dembi ka badan 3 sanana waxaa waajib ah cidda bixinaysa ama qabanaysa inay ka helaan ogolaanshe sababaysan shirguddoonka golaha wakiilada ee uu hoos yimaado xildhibaanku ama uu ku shaqeeyo marka waxaan ka warqabaa sida xogaalkan ku ahay in golihii wakiilada uu hadda fasax ku jiro isla markaana xilliga la qabtay ay tahay xilli habeenimo waan aaminsanahay inaan la helin ogolaanshe ama xasaanad kaxayoobin kasoo baxay shirguddoonka golaha wakiilada mubaarak sida aynu ognahay inkastoo sida aad sheegtay aanay dowladdu ka soo saarin fadal cad waxaa xildhibaanka loo xidhay haddana wararka suuqa ku jira waxaa in xildhibaanku saxaafadda ka sheegay in maalinta 18 May ay tahay maalin aan loo dhammayn horta aslanba 18 May ma tahay maalin sharci oo xusideeda dastuurku banaynayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa koowaad baa ka warramaya qarannimada somalilan waxay ka qaadatay xornimadeeda taariikhdu markayd 1960 Juun boqortooyada Ingiriiska waxaana Somaliland koodii July ay la midowday Soomaaliya 6 cisho ka bacdi ama 5 cisho ka bacdi xornimadeedii Somaliland waxay lahayd waqtiga dal dastuur la ay ahayd oo sida maaragtay xorriyadeeda ama xornimadeeda ay haystay muddada 5 cisho ah dastuurkeeduna uu jiray 5 cisho balse Somaliland waxay ka gooday Soomaaliya inteeda kale sababta keentay in Somaliland ay ka goodo Soomaaliya shiray ummadda reer Somaliland u fadhiisteen 12 Abriil ilaa 18 May sanadkii 1990 oo ummadda reer Somaliland ama beelihii Somaliland deganaa ay ku midoobeen inay ka tashadaan ayahooda ama ay sameeyaan wax loo yaqaano right to self determination ama xaqa ay ka tashiga oo ay Somaliland iclaamisay inay ka gooday Soomaaliya oo ay la midowday 1 July 1960 labada taariikhood oo isfahan waa dadka badankooda kaga jiro waxa u dhaxeeya hal farqi oo ah maalinta xornimada ay Somaliland heshay madaxbanaanideeda waxay heshay 1960 sidoo qabada dastuurka Somaliland waa maalintii Somaliland heshay xornimadeeda waxayna ka heshay boqortooyadii ama maxmiyadii ama mustacmarkii Ingiriiska ay hoos joogtay balse 18 May oo taariikh kale oo xusuus kale bulshada reer Somaliland waa maalintii reer Somaliland ayagoo ka tashadeen oo ay mar labaad ula soo noqdeen xornimadoodii ka labadaba Somaliland waa laga xusaa 26 Somaliland waa la xusaa oo caalamka la saaraa madaxtooyada 12 habeenimo 18 Mayna waa la xusaa oo waa maalin qaran labaduba marka dastuurka qodobkiisa koowaad balse wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa inay tahay maalinta xornimadu 1960 mudan garyaqaan maalinta 26 Juun sida aad sheegtay marka laga tago 18 May lafteedu miyaanay sida ay Somaliland sheegato oo kale aanay ahayn maalin weyn oo ay shacabkeeda ku weyn oo ay xusideeda iyo muuriinteeda gaarka leh way ku muunaysan tahay muhiimna way tahay oo maaragtay waa wax ummadda reer Somaliland ay siis ku tahay sida ku cad aaraarta dastuurka waa maalin Somaliland dib ula soo laabatay ama ay ka tashatay oo ay maaragtay ay uga tashatay inay noqoto dal madax bannaan ama sideedii hore markii hore asal ahaan ahayd ay ku soo laabato sidaan ku sheegayna labadaba waa la xusaa Cabdiraxmaano 26 Juun Somaliland waa laga xusaa waxa weeye maalin xuska iyo xusuusteeda leh 18 Mayna waa laga xusaa marka labada maalmood waa laba maalmood oo Somaliland muunad iyo astaan kule laakiin waxa muhiim ah in la fahmo haddii laga doodo oo dad fara badan waxay aaminsan yihiin inay ka mudan tahay ama ay ka muhiimsan tahay 26 Juun 18 May ka muhiimsan tahay waxaan aaminsanahay in dadka la tixgeliyo oo loo tixgeliyo isla markaana lagu ixtiraamo aragtiyaha iyo afkaarta ka qabaan maalintan 26 Juun waxaan qabaa inaanay dooda 26 Juun iyo 18 May aanay la bilaamin dooda xildhibaanka shalay hadlay balse ay dood hore u socotay mudan garyaqaan ma jira sharci Somaliland u dejisan oo sheegaya in qofka 18 May wax ka sheega uu xarig ama ciqaab kala mudanayo maya ma jiro sharci guud iyo sharci gaar ahaaneed labadaba oo tilmaamaya ama sheegaya in dembi tahay in wax laga sheego maalinta 18 May ama xuska 18 May